imika casrigan aynu joogno dadku wuu ambaday markaasaa wuxuu ku dayanayaa التوافه bay yidhaahdeen dadkii liitay dunida mucaasirkaa nimankan cirka tegay aa maqasheen in badan oo ka midii waxay aamineen waxay ku tilmaamaan alfalsafa alcadamiya waalfalsafa alcabathiya waa laba wado filosofigoodu uu maro mid rumaysan inaan waxba jirin iyo mid rumaysan noloshii gebigeeduba inaa cayaar iyo dheeldheeltay labaduba maxay wadaagaan qasdigii nolosha loo sameeyey bay garan waayeen yani nolosha waxaa la yidhahda waxay ku leeyihin it's meaningless noloshu waa bilaa macna bay leeyihin dhalo oo maalmo joog oo dhimo maxaa qiimo ku jira maxay macnaynaysaa buu leeyahy inaan sii noolaaday inaan sii noolaanin inaan iska dhinto dabeetana qolada ka dambaysa kuwa kan oo iyagu dhaqaale un ka fekeraa maxaa dhaqaale ku jira bani aadamku hadduu maranayo danka male tii dhaqaale laga helayo they will do waa samaynayaan bini aadamku markuu noloshu taafih noqotay ee uu macnaheedaba garan waayey ee aakhira u muuqan weyday ee ilaahay u muuqan waayey ee uu garan waayey wuxuu nolosha ka qabanayo qaybi waxay qaadatay waxay yidhaahdaan ilhaau nnaas dadka haddaba in la mashquuliyo ila way iswada dilayaan oo way dhimanayaan waa waalanayaan qofka bini aadamkii wuxuu nool yahay haddaanu garanaynin ma shaqaynayo wuxuu qabanaya ma jiro waayo waxaanu garanaynin waayo uu waxaan u samaynaya waayo uu nool yahay hadduu qofku garan waayo waa ambanaya wuu waalanaya si loo mashquuliyey waxay sameeyeen waxa la yidhahaa ilhaau nnaas dadka haddaba waa in la mashquuliyaa la madadaaliya inta madadaalada aqbashay waa la wadaa maanta iminka dunida sibaaq maxaa la yidhahdaa musaabaqaadka la qabto maxaa ka mid ah awrka dunida u qurux badan iyo orgiga dunida u qurux badan iyo markaasaa muxalliliini soo fadhiisanaysaa orgigan baa qurux badan indhihiisu caynkaasay u jeexan yihiin midabka indhishiisu waa caynka orgi baa la sifaynaya waa dad baa isugu yimi in orgi laga warramo inuu yahay orgigii dunida u qurux badnaa in awr laga warramo inuu awrkii iminka even kuwan muslimka weli sii sheeganaya carabaha kan iyaba waxay leeyihiin awrka quruxda badan iyo inuu laysugu loolamo oo laysugu yimaado waxay dhahan waa ilhaau nnaas waa dadka in la mashquuliyo kuwa mashquulinta diiday iyagu way waashaan iyagu maxay isku mashquuliyaan jidhkooda inay iskoogooyaan ama wax isku sasawiraan dadka iminka kubadda cayaariya heesiya maaragtay jidhkooda suu egi tatuu wada colors ba ku yaalla soo maaha midabo way isku sawireen midab maaha waa way isqaleen waa dab baa la surayaa waa la gubayaa qofkan waa la gubay waxani wax ka maydhmaya maaha waa jidhkiisii oo la gubay waa dhiig baa ka daadanaya marka innaga laynoo yimaada waxaa la yidhaahdaa dunidii saddexaad baa tihiin oo maxaa la yidhaahdaa dumarkaa fircawni guddaano waa kanoo waa googoynaysaa iyagoo nool oo aan cidina cid googoyn isagaa isgoogoynaya weliba lacag ku bixinaya qaarkood inuu jidhkiisa googooyo ayuu leeyahy waan ku nafisaya markuu dawaqo ayuu midi qaadanaya isku dhufufanaya udhigu ka yimaada self injury bay yidhahdaan waxay dhahdaan yurub iyo north america iyo dhulkaa dadkaysta afartankii waa hu intay qorayso hadda afartankii secondba qof baa isdile bay yidhaahdeen 10 to 20 times inta u dhaxaysana 10 ilaa 20 jeerna dadka iskoogooya ka badan qof bini aadam iskoogoynaya qiyaas bini aadama oo isagu iskoogoynayo leh markuu dhiigu ka soo duulo le haddaa nafis markuu dhiigu ka soo duulo u arkaya inuu nafisay marka ama ilhaagaa lagu wadaa ilhaaga ugu badan laba shay bay ku sameeyaan waxaa la yidhahdaa sports cayaar inan yar xaafad faqiira iskaga dhasho brazil ku taalla oo faamiliyadooda darogada iibiyaan ayaa kubadda si fiican u yara cayaaraya markaasaa la odhanaya 100 milyan baa la siistay waa muxuu soo kordhinaya 2 birood buu caag yaroo neefi ku jirto dhex mariya ma u malaynaysaa caag neefi ku jirto qof 2 birood dhex mariya inuu qiimihiisu 100 milyan gaadhayo ka badan baa maanta lagu iibsadaa waay qola ka dambaysa oo lacag ka samaynaysaana way joogtaa
kanna dadkaa looga dhigaya maxay qof weyn oo ay ku daydaan mashhuur baa laga dhigaya caam buu noqonaya markaasuu berri dhafoorka dhankaa ka xiiraya yararkoo dhan baa subaxii dhankaa wada xiiranaya saa dambuu dhankaa kalar marinaya markaasaad arkaysaa iyagoo dhankaa kalar wada mariya madaxiisaasuu maalinba dhan ugu cayaarayaa dadkuna oo kaga daba cayaaraya waa cayaar cayaartu nolosha maxay ku tartaa waxa ugu badane ay tartaa markaa cayaar tahay waa haddii la yidhaahdo jidhkaa dhismaya jidhku ma in malaayiin lagu dhisaa buu u baahan yahi mise bannaanka inaad iska boodboodaabuu ku dhismaya gartay inta boodboodaysa ile jidhkaanu dhisaynaa 2 bilyan oo qof oo dunida ku nool baa shaashadaha hor fadhiya iyagu maxay dhisayaan dadkan shaashadda wada hor fadhiya daawanaya maxay dhisayaan iyaga maxaa u kordhaya kan garanoo waxaana tidhi cayaarta muruqyaa lagu samaystaa waa qofka caafimaad baa laga kaasi ha kaba helo adigu maxaad ka helaysaa adigu xanuun baad ka helaysaa waayo waxay idhahdaan indhahaagu intan limiqsan maayaan caynkan dhakhaatiirtu waxay idhahdaan xanuun baa laga qaadaa bahalka la hor fadhiya saa loo eegayo idan waa ilhaau nnaas kuwa tan aqbali waayana baab kalaa loo saaraa la idhaha muusik xidig hebel baa heesay concert baa la dhigayaa bannaan baa dadkao dham isugu imanaya nin baa habeen iyo maalin isku dhan qaylinayo halkaa taagan dadkao dham wuu ilmaynaya wuu hor taagan yahay dhallinyaroo dham intay is hortaagto ayaa la ilmaynaya maxaa loo ilmaynaya ninkaasaa heesaya ninkaasaa heesayaa la yidhi waa ilhaau nnaas waa dadkii nin ka mida kuwadan psychologyga wuxuu lahaa in our society celebrates act like a drug annaga mujtamacaga iyaga buu yidhi dadka caanka ahi sida daroogadoo kaley noqdeen waa lagu sakhraamaa waa lagu sakhraamaa dadkan iskoogoynaya ama caynkan mid bay eeganayaan caan laga dhigay markaa soo duuduubo qofku markuu madho madhashada waxaan u jeedaa yacni gudiisa markaan waxba ku jirin markaan iimaan ku jirin waman yacshu can dikri الraxmaani nuqayid lahu shayطaana fahuwa lahu qariin ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa dadka ka jeesta baa ilaahay yidhi waxaan u xidhxidhnaa shayطaan oo qariin u noqda waxaa la tilmaamaya waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan dankan wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma noloshana cidhiidhay ku nool yihiin iyagoo lacag haystaa lacagtu dee dadka kama farxiso way badatay haye kabadhaad ku xidhay akawnyaad ku gurtay adiga maxaa kugu kordhaya waraaqayn halkaa la toomiya adiga maxay ku taraysaa halgu idhahda waa bilyaneer okay bilyaneer baa tay laakiin adiga maxay kugu taraysaa maxay kugu kordhinaysaa caqligaaga maxay ka bedelaysaa dareenkaaga maxay ka bedelaysaa saad u nooshay maxay ka bedelaysaa laga yaaba dhallinyaradu in waxay is leeyihin haddaad caan noqoto lacag noqoto waad farxi lahayd farxi maysa maalintaasaad oohinta bilaabaysaa waayo kuwa haystaa way ooyayaan kuwa haystaa way iskoogoynayaan kuwa haystaa intay nolosha naceen buu habeen iyo maalinba darag cabbayaa soo ma ogid yurub iyo north america dadka isdilaa waa inta waxbaratay iyo upper classka dadka isdilaa waa upper class ma aha derbi jiifka ma aha iyo dadkan xamaalanaya kuwan xamaalanayaa bris raadskay ku mashquulaan iyagu dadka isdilaa waa inta xoolaha heshay dadkan iskoogoynaya waa inta magaca iyo maamuuska heshay idan dunidaad ku nooshiin akhlaaqdii way lumtay oo dee rag iyo dumar baaba la kala garan laayay aduu qiyaas bini aadam lagu leeyay ninkuna mujtamaca shaqadii gabadhnimo wuu qaban karaa bay leeyahay